shalay anaga madaxweyne farmaajo marka aan mucaaradeen qabiil ma ahayn aragti siyaasadeed haddana qabiil ma waliba nasiib darro waxaa ah xukuumaddan hadda jirta yani xilliyada dambe waxaa looga shaqeynaya qabyaaladda si aan fiicnayn war dalkan qabiil waa u burburay waa lagu aaminay dowladda lagu aaminay maxaa qabiilad uga shaqeynaysaa qabiil meesha uu ku soo dhamaana waa naqaanaaye ma dadka ixtiraamtid oo naftaada ixtiraamtid oo wixii lagu dhibay ixtiraamtid oo ummadnimada ixtiraamtid shalay markaa mucaaradka aan madaxweyne farmaajo waxaan dhihi jirnay lacag ku bixiyaa wariyaasha dadka inay caayaan dadu ma taqaanaa lacag siiya maxaa la sameeyaa hadda shalay wixii aad diidaneed ma hadda adiga samaynaysaa see lagaaga qaadana maxaase uga baahan tahaba inaad dad caaydo hadda ya qabiil iyo dad in la caayo maxaa looga baahan yahay dalkan wuxuu u baahan yahay in la isku soo dhaweeyo qof kaa maqan inaad doonato waxaan ku soo gebagabaynaa nin nabadoona oo reer bay ah oo cabdigaruun ma lijan mase garuunka laftigiisa ma aqaano yaa waxaa la yidhi laba qabiil oo daris miduu hogaaminaya isaga marka waxaa laga dilay dadaa laga dilay waana xilli abaara macnaha waxaan rabaa waxa fiican sida ay macno u sameynaa inaan sheego meesha dadka marka laga dilay tolkiisu la tashado waxa uu dhahaa laba neef oo geela isoo qabtay geelisoo ka xastay karfantiisoo qaatay dadkii u tagay dadka ay disheen karfantoodii iyo duugtooda waa kuwan nimankeena waa wakiibla yarora waxay isleeyihiin ninkii dagaal uu ku soo qaaday waa isfiiriyaan maxaa tiri wuxuu dhahay marka sheeko ma taqaan caamos wuxuu dhahay walaal jecel u qaata fulanimo u qaata waxa rabtiin u qaata waxaa la sheegaa dagaalkii maalinkaas oo istaagay ilaa haddana waa taagan yahay nabadii ku wada nooleen dadka macnaha waxaan u wadaa tanaasulka iyo dad isu jiididda aan macno samaynayso Soomaaliya meeshan waxa soo gaarsiiyay waa samayn karaa madaxweynaha waa samayn karaa inuu yiraahdo dastuurka waa la ansixiyay laakiin